sanadkii iminka uun dhammaaday ee 2017 lagu dilay dalka Suuriya. Sayid Xuseen Faysal Cali Waraabe ayaa Suuriya tegay sanadkii 2013 kadib markii la duufsaday oo warbixin khalad la siiyay sida uu aabihii noo sheegay. Waxa uu ku dhashay oo ku noolaa dalka Finland. Xuseen waxa la socotay xaaskiisa oo Finland ka raacday iyo 2 gabdhood oo u dhashay intii ay ku sugnaayeen deegaanadaasi. waxaana la sheegay in iyadu soo xaqiijisay inuu ku dhintay weerar dhinaca cirka ah oo loo geystay goobta uu ku sugnaa. haddaba injineer Faysal Cali Waraabe ayaa Axmed Cabdinuur uga warramay dhimashada wiilkiisa. waxa weeye xaaskiisii ayaa la joogtay 2 carruur meesha ku dhalay marka shalay taay hooyadii ay u soo dirtay clip ay leedahay waxa geeriyooday oo bishii 20keedii bishii hore iyo waqtigiisii inuu geeriyooday saasaan ku helay warka xaaskiisii soo sheegtay marka magaciisa maxaa la oran jiray? Sayid Xuseen baa la oran jiray. 94 uu dhashay dalka Finland ku dhashay halkaasuu ku barbaaray halkaasuu markaa dejibadaas ay ka qaadatay isku jibooday markuu arkay magaalada sida madaxweynaha Suuriya sida dadka u leeyahay markaa propaganda soo gaaray ninkaas waa kaayo dadka musuqa u leeyahay kana reerkii Djibouti ka mid ah. marka goormuu ku biiray qoladaas IS way ugu timid meesha laakiin soo markii waxa ku biiray dadka muhaajiriinta ahaa oo tagay meesha ugu dhalatay soo 2013 ku biiray meesha IS tagaala iska dhalatay meesha ka abuurantay waa marka dadkii asiga ahaa meesha u jahatay buu ahaa ana 2013 muddada adiga aabba ahaan xiriirkiinu sidee buu ahaa? anigu markii soo xiriirka uu mutaxinayno dadku 94 uu dhashay ana 29 aan dalka ka imid arrimaha Soomaaliya galay marka waxyaalaha dad iska saaraba dhibaato waxa weeye waan bayniyay aabbanimadii ka imid marka laakiin hooyadii ay xiriir la lahaa markuu dambeysay la soo hadlay bishii dhaweyto 25keedii bay ahayd marka waxa ay ahayd uu ka soo baxay maalmii khatar tahay oo riqa ayuu ku jiray in badan oo dadkiinda magaalada ka qasay loo galay loo go'doomiyay marka uu ka soo baxay xaaskiisii 2 carruur iyo meesha hadda ku geeriyooday ugu yimid hadda wuxuu ahaa qalbigiisa xaggeena noo soo jeeday marna ku qaxay oo arkay meesha inuu ku soo qaldamay oo hadda xaggeena u soo jeeday ay geeriyada u tiri laakiin nimanka waxaan sameeyay uu soo baxay doona insha Allah taala kaasoo rajeynaya oo khatartii weynaa uu soo dhaafay marka hooyadii xiriir joogta lahaa. dawladda Finland iyo adigu arrintan geeridiisa wax xiriir ma ka sameeyeen? wallahi dawladda Finland waa mar hore aan u sheegnay berigii uu baxayay baan nidhi ninkaas waa jibriisay yahay baasaboorka ayaa ka dhacay aan loo jidiidin marka waxay dhahay maana dami lagu gelin marna xal buu leeyahay dadkii tangaarada asluubkiisa qaato waanu sheegnay marka isaga wadada waxba ka saarayna saamo nafteeda uga saarayo carruurteeda uga imi 29kii iyagana waan uga saarayaa maalinta hadee inka sax ay tahay waxa ilaahay qoray waxaan joojiyay ninkaas uu tigay si xaaskiisa lama yeelin marka waa ilaa hadda lama xiriirin shalay la geeriyay dhacday laakiin hooyadii waxa joogta hooyadii la xiriir doonto hooyadii xaaskii iyo carruurtii maxay ku sugan yihiin baa la yiri hadda waxaan wax ku soo garanayno klibkaas baa laga hayaa oo jiri maantaan helay meel internet ku shaqeynayo oo geeriyooday ilaa hadda waxa ku sugan tihiin sidii uu geeriyay midna kama hayno dadka khatartaas oo ku jirta inay soo nabadgeliyo geerida waa xaq waa meel la wada socdo marka waa alxamdulilah rabbil caalamiin isagoo islaam maanta walaal baa diinta kor u qaad ku dhintay in badan oo jirto carruur ku dhimatay meel xun أنا يسوي مقام في عنده عن قدر يعني مقام في عنده كليه كلمة الله إذا قرقات مكان وحلا وحنا ما أنت يعني إذا نوصل حق هذا إن شاء الله كبر ما شاء الله تعالى وتشنبي كلام لا كبر إن شاء الله تعالى لا قلبي يسوق على ما أبي أنا وحنبتك بدل يسوق تحسيرين يقدر فين وما فيهم يجي BBC ما فهمتين لا يكمل يسمر يعني رسيل
hadalkaasina waxa uu dambeeyey injineer faysal cali waraabe.